koobiya 20 Abriil ee sanadkan aynu ku guda jirnay 2018 waxa taariikhda markii ugu horeysay laga aasaasay gobolka Togdheer urur ay ku midaysan yihiin hablaha gobolka Togdheer qurba joog iyo qolqol joogba kaasoo lagu magacaabo Hablaha Horumarinta Burco ururkan ay ku midoobeen Hablaha Horumarinta Burco ayaa mid u adeega dadka tabaalaysan isla markaasna ka shaqeeya kor u qaadista waxbarashada caafimaadka iyo waliba soo celinta bilicda magaalada Burco tan iyo muddadii koobneed ee laga joogo aasaaska ururkani waxa weyn looga dareemay magaalada Burco dhaqdhaqaaqa iyo dareenka dal iyo dad jacaylnimo ee midowga Hablaha Horumarinta Burco Hodan Cismaan Maxamed oo ah gudoomiyaha Hablaha Horumarinta Burco ayaa fariin u dirtay guud ahaanba shacbiga gobolka Togdheer waxaana kamid ah hadaladeedii sida tan waan idin salaamay bulshooyinka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer halkan waxa jooga Hablaha Horumarinta Burco hablahaasoo hablo ku midoobay oo taageerida ama wax u qabashada dadka tabaalaysan sidoo kalena groupkan waxa la aasaasay 21 Abriil 2018 waxaanu ilaa hadda gaadhay guulo la taaban karo waayo wuxuu u shaqeeyaa vulnerable groupka qolada leeydha ama dadka aad u tabaalaysan waxa ku midoobay hablo dabada jooga iyo hablo dalka joogaba maantana waxay sameeyeen inay bulshada u soo bandhigaan in dadka wax badan laga bedeli karo haday tahay xaq caafimaad xaq waxbarasho iyo dhinac kasta bulshadu cidhiidhi kaga jirtaba waxaan hablahan ujeedada groupka ay aasaaseenna ay tahay ugu weyn inay kor u qaadaan waxbarashada inay kor u qaadaan caafimaadka iyo fayadhowrka iyo sidoo kale inay soo celiyaan bilicda magaalada waxaan ku soo gabagabeynayaa in bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer gaar ahaan Burco siba dhalinyaradu wax la qabtaan hablahan ku midoobay groupkan una taagan heegana waa wax qabashada dadka tabaalaysan qaar kamid ah xubnaha ururka horumarinta Burco ayaa bulshada la wadaagay dareen qiimo leh kaasoo ka turjumaya in loo baahan yahay in bulshadu si wada jir wax u wada qabsadaan noqo aqooyahan dalkiisa iyo dadkiisa iyo gobolkiisa anfaca horumarka gobolkaaga waa horumarka naftaada helida waxbarasho tayo leh waxay horseedaa helida bulsho tayaysan badbaadi maskaxi fiican haysan ku gudgalgala karaamada iyo weynida qofka waxa lagu qiimeeyaa ilaa xadka uu naxariisto walaalkiisa tabaalaysan horumari bulsho oo kobci garaad soo koreeya una sameeyo dariiq loo maro cilmiga noqo qof gobolkiisa wax taro oo kaantaroor qashinkaaga inta qashinku ku jira cudur ku jira dayactirka caafimaadka bulshadu waa ka hortaga hadimo umadeed waxaan taransanaan ku taageernayo Togdheer horumartay inta huruday toos gobolkana wax tara horumarto dalka hiigsatiyo hoygii Togdheer oo lagu soo hirtaano hamuun qabnaa dunidan aynu ku noolnahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ka yeelay ciid waxaanu ku abuuray meel kasta ummad ama bini aadam meel jirto ciid iyadu noqoto fooq ama laami balse meel kasta waxa horumariya meel heerna gaarsiya bulshada ku nool hadaba goormay bulsho horumarta bulsho waxay horumartaa iyada markay diyaar u noqoto horumarkeeda wa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Somaliland Burco